السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا وما سنتهين ما أنت واثنين وأنا كوذا بشهر ديسمبر اللي بيتبنات سنة كلابا كن إيشان يلا باتنك muuqaal kan waxaan rabaa inaan idinku wadaago gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa Soomaalida gobolka Minnesota waxa uu ka difaacay eedeymihi kala duwanaa ee madaxweyne Trump uu u soo jeedinayay maalmihii la soo dhaafay haddaba maxay yihiin hadallada uu ku difaacay gudoomiyaha gobolka Minnesota Soomaalida gobolkaasi degan iyadoo gobolka ugu badan oo Soomaalidu ay degan tahayna uu yahay gobolka yiri gangis ayay noqdeen oo gobolka Minnesota ay burburinayaan waa inaan wadankoodii ku celino arrimo kala duwan ayuu sidoo kale xildhibaanada laga soo doorto gobolkaasi ee Soomaalida oo ah tan kaliya ee Soomaaliya ay ku jirta Congress-ka ayaa hadallo kala duwan oo soo jeedinayay oo shalay ugu dambeysay markii uu ka soo laabanayay fasaxii Thanksgiving-ka uu ku soo laabanayay Washington oo yiri waxaan maqlay in ay walaalkeed ninkayga ku keentay arintaasi haddii ay run tahay maba ahan inay Congress-ka ka sii mid ahaato waa in wadanka laga masaafuriyaa sida uu isagu hadalka u dhigay haddaba gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo doonaya markii saddexaad inuu u tartamo gudoomiyaha gobolkaasi doorashada dhici doonta dhamaadka sanadka soo socda ee 2026 ayaa shalay waxaa lagu wareystay barnaamijka Meet the Press oo xad kasta ka baxa telefishinka NBC waxaana wareysatay Kristen Welker arrimo fara badan ayaa laga weydiiyay inuu ka jawaabo hadalkii ka soo yeeray madaxweyne Trump madaxweynuhu xitaa gudoomiyaha gobolkaasi waa oo weeraro waxa uu yiri laba ay mid tahay in uusan shaqadii oo gudoomiyaha gobolka uusan ka soo bixi karin iyo in uu cabsanayo maxaa yeelay musuqmaasuqaasi waa uu joojin waayay marka bal hadalladaasi inuu ka jawaabo ayaa gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz loogu yeeray xubno badan oo Republicanana waa ay la tartamayaan dhamaadka sanadka soo socda oo isagoo doonaya markii saddexaad in loo doorto gudoomiyaha gobolkaasi dood ayaa la qabtaa oo xubnaha tartamaya waa la doodsiyaa marka dooda waxyaabaha lagu soo qaadan doona sanadka soo socda waxa ugu badnaan doona musuqmaasuqaasi inuu dhacay xilligii isagoo gudoomiyaha gobolka ahaa isla markaana uusan waxba ka qaban haddaba gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa wax laga weydiiyay arrimahaasi waxaana uu ka difaacay bulshada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota eedeymaha kala duwan oo madaxweyne Trump uu u soo jeedinayay maalmihii la soo dhaafay waxa uu ku tilmaamay arrintaasi inay tahay mid xaasidnimo ah isla markaana aan wax micnaha lahayn oo bulsho balaaran oo ku nool gobolka Minnesota loo soo jeediyo Soomaalida uu ula jeedo waxa uu yiri madaxweynuhu ma ahan in uu qiimo tir ku sameeyo ama bahdil uu ku sameeyo bulshada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota laakiin waxa laga yaabaa inuu waxyaabo kale uu nagu caawin karo laakiin waxa uu yiri inuu qiimo tir ku sameeyo bulsho aad u fara badan oo leh dad kala duwan sida aqoon-yahano kuwa dhinaca waxbarashada ku lug leh kuwa artists oo fanaaniinta uu la jeedo looyaro iyo sidoo kale dhaqaatiir iyo sidoo kale waliba ganacsato waxay bulshada Soomaalidu ay gobolka Minnesota ay keeneen ayuu kala duwanaansho taasi oo tamar badan ku soo kordhisay ayuu yiri gobol sida Minnesota oo kala ah laakiin wuxuu yiri madaxweynuhu waxa uu si gooni ah u bartilmaameedsaday bulshadaasi laakiin arrintaasi ma ahan mid micno sameynaysa waxa uu yiri waan ogolnahay dadka dambiilayaasha ah wadanka ka saar xadka ammaan ka dhig laakiin waxa uu yiri sharafta iyo waliba xushmada ee America ku soo dhaweyso dhaqan ahaan ay u leedahay dadka soo galootiga ah iyo waliba qaxootiga ma ahan in uu ku ciyaaro marka waxa la weydiiyay gudoomiyaha gobolka Minnesota su'aashan waxa la yiri in badan oo kamid ah bulshada Soomaalida ayaa madaxweyne Trump uu bartilmaameedsaday oo gobolkaada ku nool waxaana uu ku bartilmaameedsanaya arrimaha musuqmaasuqa uu sabab uga dhigay in uu doonayo in uu baabi'iyo dadkaasi intooda badan waxay ka soo jeedaan wadamada East Africa qaarkood dacwad ayaa lagu soo oogay dambi ayaa lagu helay waana la xukumay kadib markii balaayiin dollar oo lacagta canshuur bixiyaasha ah oo barnaamijyo dawladda loogu talagalay xilligii coronavirus-ka Feeding Our Future ay gabadhu ula jeedaaye in ay luusadeen gudoomiye sida aad ogtahayna waxa la yiri lacagtaasi waxa ay ka badan tahay lacagta gobolka Minnesota sanad kasta uu ku bixiyo xabsiyada gobolkaasi marka waxaan rabaa inaan fursad ku siiyo inaad ka jawaabto arrintan ma qaadanaysa mas'uuliyadda inaad ku guuldareysatay inaad musuqmaasuqan gobolka Minnesota ka joojiso su'aashaasi ayaa la weydiiyay gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz marka gudoomiyaha gobolka Minnesota muxuu ku jawaabay wuxuu yiri waxaan mas'uuliyadda qaadanaya inaan dad fara badan xabsi geliyay gudoomiyaasha goboladu ma hadlaan oo kaliya laakiin waxay xaliyaan dhibaatooyin kala duwan
ma ahan oo keliya Soomaalida macnaha waxa uu la jeedaa Soomaalida oo keliya ma ahan waxa musuqmaasuqa sameeyay waxa uu yiri gobolka Minnesota waa gobol deeqsi ah isla markaana barwaaqo ah si wanaagsanna loo maamulo taasi marka waxa ay soo jiidanaysaa ayuu yiri dambiilayaal aad u fara badan dadkaasina xabsi ayaan dhigi doonaa waxaan samayn doonaa wax kasta oo arintaasi aan ku suura gelinayno laakiin waxa uu yiri in bahdil lagu sameeyo ama qiimo tir lagu sameeyo bulsho aad u fara badan tilaabo ay qaadeen dad yar arintaasi waxaan ku tilmaami karaa inay tahay midna casnimo ah waxa uu yiri dadka arintan ku lug leh waxaan dhigaynaa xabsiga ayaan dhigaynaa waxa uu yiri aniga macno iima samaynayso halka asal ahaan aad ka soo jeedo diintaada iyo waliba midabkaada haddii aad dambi ku kacdo macnaheedu waxay tahay in lagu xirayo barnaamijyadan waxa uu yiri waa barnaamijyo loogu talagalay caruurta la xanuunsan autismka in wax loogu qabto in dadka guryo la'aanta guryo loogu raadiyo iyo in la xaqiijiyo in caruurtu aysan baahnaanin oo cunto lagu siiyo waxa uu sheegay tani waa sababta gobolka Minnesota ay u tahay gobolka mid kamida gobolada ay hooseyso faqiirtinimada caruurta waana sidoo kale gobol kamida gobolada ugu wanaagsan oo caruurtu ay ku noolaan karaan laakiin dadku arintaasi ayay ka faa'iideysteen isla markaana arintan mid isku xiran ma ahan musuqmaasuqaasi iyo eedeynta Soomaalida oo madaxweynuhu u soo jeedinayo iyo inuu sharaf dil ku sameeyo bulsho aad u fara badan kuwaasi oo ka soo cararay dagaal sukeeye isla markaana sameystay bulsho muuqata taasi oo gobolka Minnesota iyo waliba wadankeenaba mid wanaagsan ka dhigaysa laakiin wuxuu yiri qofkan waa Donald Trump waxa uu doonayaa bulshada inuu ku weeciyo waxyaabo kale isla markaana wax xala ma hayo waxa uu sheegay ma doonayo in uu wax ka qabto musuqmaasuqa laakiin waxa uu yiri farqi weyn ayaa u dhaxeeya arintan la xiriirta ka dhacday gobolka Minnesota ee fraudka ah iyo sidoo kalena musuqmaasuqa laakiin musuqmaasuqu waa wax uu isagu yaqaano Trump ayaa waxa uu leeyahay arimaha musuqmaasuqa asaga ayaa laga wareysanaya oo musuqmaasuq fara badan ku soo lug lahaaday sida uu hadalka u dhigay haddaba gudoomiyaha gobolka Minnesota oo arimahaasi ka hadlayay su'aalahaasina la weydiinayo bal wax yar ila daawada This is cruelness. This is meanness. It's aimed at a broader community. And as far as demonizing our Somali community, maybe he could help us on some things. Demonizing an entire community, folks who are in the professions, educators, artists, doctors, lawyers, entrepreneurs, they bring the diversity and the energy to a place like Minnesota. And for him to just randomly decide to do this, it makes no sense. Do your job. Get the criminals out. Secure our border, but do it with dignity and respect to the American tradition of respecting immigrants and refugees as a beacon of hope. Well, speaking of the Somali community, President Trump is targeting them and your state in part. He's citing fraud as the reason for his crackdown. Dozens of people of East African descent have been charged, convicted, and sentenced for stealing more than $1 billion in taxpayer money from government programs during COVID. As you know, Governor, that is more than Minnesota spends each year to run its Department of Corrections. So I want to give you a chance to respond to this. Do you take responsibility for failing to stop this fraud in your state? Well, certainly I take responsibility for putting people in jail. Governors don't get to just talk theoretically. We have to solve problems. And I will note, it's not just Somalis. Minnesota is a generous state. Minnesota is a prosperous state, a well-run state. We're AAA bond rated, but that attracts criminals. Those people are going to jail. We're doing everything we can. But to demonize an entire community on the actions of a few, it's lazy. We'll take it on. We'll put folks in jail. I don't care what your nationality is. I don't care what your religion is, your color. If you're committing crimes, these are programs that were meant to serve students with autism, to housing, and to making sure people had enough to eat. There's a reason Minnesota ranks as the top, lowest childhood poverty, best place for children to live. People are taking advantage of that. They're going to prison. That is totally disconnected with demonizing an entire group of people who came here fleeing civil war and created a vibrant community that makes Minnesota and this country better. But that's Donald Trump. Deflect, demonize, come up with no solutions. He's not going to help fix anything on fraud. My God, there's a big difference between fraud and corruption is something he knows about. aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi wareeg oo dilla sida iyo nabadgelyo